السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا حلقتنا المعطى أو ستة صيد كغير منسا كنال كيني عبد شكور كنال يبلوغين محترف كدي مركينو حلقة هوري كغسو هذا الماي habka loo baaro kombiyuutarka dambiilaha oo inagoo isticmaalayna barnaamijkan OS Forensic oo badanaa ay isticmaalaan CID-du. xalqadan maanta oo taa daba socota waxaynu kaga hadli doonaa sida loo baaro kombiyuutarka qofka dambiilaha iyadoo la soo saarayo dhammaan wixii flash USB u geliyay, taariikhdu geliyay, serial numberkii flashta iyo information saas oo aad u fara badan oo uu inoo suuro gelinayo app kan yar oo aad u fudud isla markaana aan u baahnayn kombiyuutarka lagu install gareeyo kaliya oo horaad ka isticmaalaysa markaad soo download gareyso aadna khafiif u markaad download gareynayso. Marka haddii aad xasuusato xalqada hore aynu soo daawanay waxaynu soo baarnay kombiyuutarka dambiilaha inagoo baarnay baaswiidhadii dhammaan websaytadu booqday, baaswiidhadu geliyay, ciwaanadu isticmaalay maca baaswiidhkoodii iyo habab kale aad u fara badan oo ciwaanadii aynu ka tixraaci karno. Sidoo kale waxaa ku jirta USB-da oo aynan isticmaalin balse sharaxo dheeraaday awgeed aynu niri idinku sii isticmaalaa. Marka maanta waxaynu sameynaynaa maadaama aynu USB marnaba soo qaadan sida loo baaro kan kale ayaynu isticmaalaynaa maanta. Marka waxaad kasoo download gareysaa linkigan oon ku dhigay videoga hoostiisa, pagekan xagga ugu hooseysa ee tegaysaa waxaad ka dooranaysaa bartanaad ku dhufanaysaa. haddii USB drive haddii 32 bit iyo kombiyuutarka oo kaasar ku dhufo, haddii 64 bit yahayna kan hoosaad ku dhufanaysaa. Markaad soo download gareysa qaabkan kuugu imanayaa, right click tulsi kadib extract here waxa uu ku soo saaraya faylasha. Marka faylasha markuu ku soo saaro saddexdan uma baahnid iska delete garay. kaas aynu baahnay kan aynu baahnay waan double click gareynayaa. waxaad arkaysaa inuu ii soo qabtay dhammaan kombiyuutarkaygu intuu hard diskigiisu uu noolaa intii flash ee aan geliyay. wata first flashtii ugu horreysay geliyay iyo last flashtii ugu dambeysay ee aan geliyay oo kun flashtii. tan haddana eego waa 25 November ee geliyay 2015 tobankii iyo 10 mir walibana iyo 8 second PM marka ahayd. haddaan sii double click gareeyo waxa uu leeyahay device-kan magaciisu waa porty oo flashta waxaa loo yaqaanaa removable disk, sidoo kale waa porty baa loo yaqaanaa magaceeda. marka porty weeyaan device type noociisu waa mass storage safe to unblock. yes waka noocan xagga serial numberkii flashta طبعا waa kan maca serial numberkii taariikhdii last block la geliyay. marka habkan ayaa laga tixraaci karaa flash kasta oo kombiyuutarkaaga aad gelisay, serial numberkeedii, shirkadeedii. طبعا wuxuu sii fiicnaan lahaa haddii barnaamij kale la haysto oo lala isticmaalo, balse barnaamij kale ma hayno oo aynu la isticmaalno ay kusii baarno serial numberadan ku eegno. tusaalahaan kale flashtan serial number maba leh, informationkii kale oo dhanna waa kan inoo soo dhigay. USB input device weeyaan, connector imika miyay ku jirtaa no waa ka qaabkaas ayuu noo siinaya. marka halkan waxaad aragtaa dhammaan wixii flash aad soo gelisay kombiyuutarkaaga tiradoodii waa kuwan. haddii flash ay ku jirto ood enable gareyn kartaa, ood furi kartaa flashtaasoo kale. tusaalahaan haddii aad soo baadho aad soo hesho ood geliso flashta waxbaad oran karaysaa enable flashtan enable garey, waad sii gudageli karaysaa. balse kan inaga waxaynu soo qaadanaa maadaameynu xalqada hore aynu kaga soo hadal sida loo baaro flashyada, tan aynu kaga hadlaynaa. xalqadu waa iska gaabnayd, iska simple bay ahayd. intaas ayaynu kusoo koobaynaa. inta ku kulmi doono xalqadaha kale ee maanta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.